shirkadda Dahabshiil Group oo ka mid ahayd shirkadaha sida weyn uga dhex muuqday carwo ganacsiyeedka sagaalada ayaa xidhitaanka carwadaasi oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda Dahabshiil Group gaar ahaan qaybta isgaarsiinta ee Somtel waxay xidhitaanka carwadaasi ku guddoonsiiyeen macmiilkii ku guuleystay gaadhiga Hyundai-ga ah oo ah nin reer Sanaaga oo magaciisa la yiraahdo Jamaal ayaa waxa halkaasi furihii gaadhiga ku wareejiyay saraakiisha shirkadda casriga ah ee Somtel iyo sidoo kale mas'uuliyiinta heer gobol heer degmo ee gobolkani Togdheer ugu horeynba waxa munaasabada lagu xidhay carwadaasi ka hadlay Siciid Colaad oo ah gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group ee gobolka Togdheer isagoo bilaash baan ku bixinay waxaanu dadka siirinay isagoo bilaash $5 bishii ayuu iska bixinay qofku waxa kale oo sameeynaa bilashii dadka lagu lahaayo dhan in aanu u siinay 25% discount oo macal markii وبسرية هاد أنت يراين كتيرنا أنو حفيظة كمان أنو كوبا منا إن أي كوب حنكران أو فري جدنا يهين أنت عروضه أي صوته أنت مرة كتب واحد كلا كغيب قليل أو دهشيل جروب كترسم شركة سامسونج أو أنو وكالة أهان أنا وجوجنو له نوع أو كل ديوان أو إن تلفونات أي هذا نقول يبني وحنسلي يبكي وقبضنا عروض أسيتي سعودي كسعودي تلفونات سبسات بهاي أو أنا سيرة ديسكون في عن وارنتي حال صناعة يلا $20 أو وجرا قفكة أو وهذا الإنترنت واحد كلا أو دهبشيل بانك إنترناشنال يحوالده لبضوا باي سميين إن أيقونا دي بلاش كبرين سنة كي لبضوا كريه لباتين إلا إمكا وحن فيليا قواردي وقبضنا أيام باختيار نفسي وبحني ودadka waliba u noqday investment caawina insha Allah kii ugu dambeeyay ee la helay oo helay gobolka Sanaag ku guuleystay xafladan maamulka gobolka aanu dhiibi doonaa ay ku guddoonsiin doonaan ninkii helay waxa kale oo microfinance ayaa isaguna ka qayb ahaa oo isaguna amaahda yaryar ee ganacsatada yaryar aanu siino waxa aan mar labaad mahad celinayaa dhammaan waxa isaguna halkaasi ka hadlay Qadar oo kamid ah mas'uuliyiinta ugu sareysa shirkadda isgaarsiinta casriga ah ee Somtel aniga ku hadlay magaca shirkadda Somtel waxa halkan taagan macmiilkii guuleystay ee helay gaariga waa Jamaal oo ka socda gobolka Sanaag waxaanu bixinay baabuur badan oo hore oo laga faa'iideystay waxaanu ugu talagalnay inaanu bulshada ku celino oo dhalinyarada shaqo abuur ay u noqoto waxaan rajaynayaa insha Allah Jamaal oo Ilaahay uga baryayo inuu gaariga Allah u barakeeyo macaamiishka Somtel waxaan leeyahay sanadkan 2021 waxaan idin soo wadnaa abaalmarino badan oo kale insha Allah oo qaaliya u diyaar garooba inaad abaalmarinaha ka qayb gashaan shirkadda Somtel mar walba macaamiisheeda waxay jeceshay insha Allah inay guuleystaan oo wax ku soo celiso ugu dambeyntii waxa isaguna goobtaasi ka hadlay macmiilkii ku guuleystay gaadhiga Hyundai-ga ah oo u mahadnaqay shirkadda casriga ah ee Somtel dareenkaygu waa 100% runtii hawl badan baan u maray dad badan baa codeeyay nasiibkuna way siiyay shirkadda Somtel runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waa shirkadda Kenya ee macaamiisheeda wax ku celisa warkaygu waa sidaa waxaad ka mid ahayd 56 guuleysta oo waxa weeyaan ku soo baxay abaalmarinta shirkadda oo waxa weeyaan loo kala codeeyay sidii u qabsoontay dawladda dadka runtii anigu horta markaa kaliya ma guuleysan dhowr lambar baan lahaa Somtel hal mid maliya anigu shirkadana waan jeclaa runtii inaan u sheego anigu waxaan leeyahay 17 Somtel oo kaara waan jeclaa runtii xaflad oo kale inaan ka hadlo كاكلي كم يقول يستن لما تروح يقول يستن شلال أيان لي عبد الله جامع ورباهين TSBC مقالة برعو